asxaabta aad bani islaamay soo dhawaada hadayna idhaahdo hal page mashruucaaga ama business idea maskaxdaada ku guuxaysa ma ku qori kartaa start to finish fikradoo dhan hal page ma ku soo koobi kartaa qaabkaad u bilaabi lahayd cid la tacaamuli lahayd ilaa iyo marxaladda ugu dambaysa ee ah inaad lacag aad ka samaysid hadday jawaabtaadu ay tahay maya ma samayn kartid insha Allah tacaala videogan waxaad ka baran doontaa qaabka saxda ah ee business maaniyada caalamka u taajirsan ay u shaqeeyaan hal page ay mashruucooda ee fikradooda dhan ay ku soo koobaan أخيرا سو دوادا إن شاء الله تعالى كونسبتيغان waxaa la yiraahdaa business model canvas kana waxa sameeyeen la yiraahdo Alex Osterwilder ninkaas oo u dhashay wadanka Switzerland modelkan wuxuu ka kooban yahay 9 step oo muhiima oo looga baahan yahay qofka markay fikrad ama business idea ay ku soo dhacdo inuu jadwal u kala qaybiyo jadwalkana mid walba waxa ku haboon iyo qaabka ugu wanaagsan ee laga faa'iidi karo inuu u qoro si jadwalkan aan ku aragno waxa way 9 point oo muhiima sida sheegay point baynu qaadanaa iyo waxyaabaha laga baahan yahay inaad samaysid pointka u horeeya wuxuu ku saabsan yahay customer segment waa inaad ogaatid customerka aad ganacsigan ama businesskan ama service aad wahaado aad u gudbinaysid waa inaad qortid cidii kala yihiin haddii yihiin dumar haddii yihiin rag haddii yihiin ciyaal pointka ugu horeeya waxaas oo details aad ku kala qoraysaa uma baahnid in details furbaad aad ku qortid kaliya waxaad u baahantahay target customer waxaan doonayaa in ay ahaadaan مثلا dumar iyo rag iyo ciyaal oo halka service-kaaga iyo product-kaaga saddexda qolo aad u soo gudbisid haddaynu eegno jadwalka point-ka labaad wuxuu ku saabsan yahay problemska mushkiladda ama problemka uu xalleynaya maxay tahay waa in detailska oo dhan halka aad ku qortid si aad bari marka dacayad sameynaysid amba aad dadka u soo bandhigaysid aad tiraahdid problemka aanu xalleynayno amba aanu solve garayn wuxuu ku saabsan yahay 1 iyo 2 iyo 3 marka waa qodob muhiima oo ka mid ah business modelka saxda ah qaabka loo qoro waana mushkiladda xalleynaysid waa inaad qortid qodobka saddexaad baynu imanaa unique value proposition waxa la yiraahdo qolooyinkan kale ee kula tartamaya aad kaga wanaagsan tahay amba service-kaagu wuxuu kaga wanaagsan yahay waxaas oo dhan ay qoraysaa qodobka afraad waxa weeye solution qaabka mas'aladan aad u xalin lahayd mesela problemkii baynu ka hadalnay oo tuuga ahayd mashaakilka iyo problemka ay fikradaadu ay xalinayso amba mashruucaagu waa inaad qaybta solutionka aad ku qortid yani haddii mushkiladii ay ka jirto meel muayana qaabkaad u xalin lahayd qaabka aad u wanaajin lahayd businesska aad galaysid ayaad ku qoraysaa taasina waxa weeye solutionka qodobka shanaad wuxuu ku saabsan yahay channelskana waxa looga jeedaa qaabka aad u gaari lahayd customerkaaga hadday tahay social media hadday tahay meherada aad furatay hadday tahay online business qodobka lixaad haddaynu nimaadno wuxuu ku saabsan yahay revenue streams waxa looga jeedaa servicekan ama productgan qaabka aad lacagtooda uga samayn lahayd waana qodob aad iyo aad u muhiima hadday tahay subscription oo dadka aad fee aad ka qaadaysid si maaragtay bila amba sanad amba wuxuu doona ha ahaado meherad aad haysatid oo halka dadkii aad ugu soo gudbinaysid service-kaaga iyo product-kaaga si ay kaaga iibsadaan waana qodob aad iyo aad muhiim asna qodobka toddobaadna wuxuu ku saabsan yahay cost structure waa qarashaadka adiga ka baxaysa hadday tahay online website bad samaysatay habeyntiisa qurxintiisa waxaas oo dhan kaaga baxaysa dad hadday ku shaqeeyaan haddii aad website مثلا qolooyin aad ka karaysatay lacagta ka baxaysa bishii hadad siinaysid lacag amba sanadkii hadad meherad aad leedahay kiradii oo ka baxaysa lacagtii leerka oo ka baxaysa qarashaadka ka bixi doono dhan bad ku qoraysaa hadda intaas oo part 1 ka ku soo gabagabeynaa insha Allah tacaala part 2 ban soo sameyn doonaa aynu dhameystirayo labada qaybood ee kale ee canvas modelka ka haray insha Allah tacaala example shirkadaha waaweyn qaabka u isticmaalaan canvas-kana waan dul istaagi doonaa باذن الله تعالى aad bani islaamay kharbada bani rajeenaya assalamu alaykum wa rahmatullah